madaxweyne Barack Obama ayaa booqanaya gobolka New Jersey oo xudun u ah goobaha ay duufaanta Sandy ay khasaaraha u geysatay waxaana Obama uu ballan qaaday kaalmo dhammaan dadkii ay wax ka soo gaareen duufaantii Sandy ee ku dhufatay xeebaha bari ee Mareykanka. Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixin waxa uu nooga diyaariyay wararkii ugu dambeeyay ee khasaaraha iyo howlaha gurmadka ee duufaanta Sandy. dadka Mareykanka waxay ka gudbeen cabsidii iyo walahowgii ka haysatay duufaantii Sandy ee maalmihii lasoo dhaafay ku dhufatay magaalooyinka gobollada bari ee dalka Mareykanka gaar ahaan dhulka xeebaha ku teedsan. inkastoo ay duufaantu gudubtay oo ay dishay inta la shaaciyey ilaa iyo hadda ugu yaraan 43 qof ayaa haddana saamayntii ay reebtay weli waxay ka muuqataa magaalooyinkii ay ku dhufatay. waxaa ugu daran New York iyo gobolka New Jersey oo ah meeshii ay duufaantu dhinaca beriga ku soo degtay maalintii Isniinta ahayd ee lasoo dhaafay. marka laga soo tago burburkii hantiyeed iyo guryihii ku quusay daadadka ay duufaantu ku soo rogtay deegaanka xeebaha, saamaynta ugu weyn ee haatan weli taagan ayaa ah malaayiin qof oo aan weli koronto haysan. magaalada New York oo ah magaalada ugu weyn dalkan Mareykanka ahna xarunta ganacsiga ee dalkan ayaa inta badan ay korontadu ka maqan tahay. waxaa kaloo weli aan si rasmi ah u bilaaban gaadiidkii dadweynaha oo ay isticmaalaan maalin walba dad lagu qiyaaso 8 milyan iyo bar gaar ahaan qadka tareenada dhulka hoostiisa mara. waxaase warka ugu wanaagsan ee ay dadka reer New York hadal hayaan ah maanta in dabayshii ay tagtay, ganacsigii iyo dhaqdhaqaaqii magaaladuna uu si tartiib u soo noqonayo. waxaa kaloo furmay oo duufaanta ka badbaaday suuqa caalamiga ah ee kala iibsiga saamiyada ee New York. madaxweyne Barack Obama ayaa kaalmo u ballan qaaday dhibanayaashii ay wax ka soo gaartay duufaantii Sandy ka hor inta uusan maanta booqasho ku tegin gobolka New Jersey. wuxuuna guddoomiyaha gobolkaasi kala hadli doonaa dib u dhiska dhulka xeebaha ee burburay. We are going to do everything we can to get resources to you and make sure that waxaan samaynaynaa buu yidhi wax walba oo kalaankeenna ah si aan idinkugu helno wixii aad u baahan tihiin oo aan u xaqiijinno in la ogaado baahi kasta oo aan hadda laga warqabin si aan jawaab degdega uga bixinno. waxaan u sheegay buu yidhi guddoomiyaasha gobollada iyo duqowda magaalooyinka haddii ay jawaab ka waayaan cid ka mida dowladda federaalka ama dhexe oo ay dhibaatada kala hadlaan inay aniga si toosa ila soo xiriiraan aqalka cad. gobol kale oo isna dhibaatada duufaantu ay si weyn u taabatay ayaa ah Connecticut, halkaasoo daadad xooggan ay ku soo rogmadeen geedo soo dhacayna ay xarkihii korontada ka jareen dad ku dhow 600 kun. magaalooyinka ay ka mid tahay Washington waxaa saakay dib u furmay iskuullada, qadadkii tareenada, basaskuna waxay bilaabeen adeegooda. inkastoo deegaano aan badnayn oo ku yaala gobollada Virginia ee duleedka Washington iyo Maryland ay weli korontadu ka maqan tahay. guddoomiyaasha gobollada iyo madaxda dowladda federaalka ayaa u muuqda kuwo jawaabo ka bixinaya masiibada ay reebtay duufaanta Sandy, iyagoo ka shidaal qaadanaya casharadii laga dhaxlay tallaabooyinkii la qaaday duufaantii weyneyd ee Katrina ee Mareykanka ku dhufatay sanadkii 2005. hay-adaha dowladda iyo kuwa gaarka ah ee ka shaqeeya gargaarka ee ku sugan dhulka ay duufaantu ku dhufatay ayaa dhibaato weyn ay ka haysataa wax ka qabashada khasaaraha baaxadda leh ee horyaala. musiibadii ugu xumayd ee sidan oo kale ee ka dhaca dalka Mareykanka taariikh ahaan ayaa ahayd duufaantii Katrina, taasoo ay ku dhinteen in ka badan 1800 oo qof, guryahooda ka saartay in ka badan 1 milyan oo qof oo kale, godoomisay 3 milyan oo qof oo koronto la'aan ah gaar ahaan inta badan New Orleans iyo Louisiana. jaamacadda Tulane University ee ku taala New Orleans ayuu Mark Roy gacan ka geystaa socoshada barnaamij waxbarasho oo shahaadada masterka lagu bixiyo oo dhinaca maareynta musiibooyinka ah. Roy sidoo kale waa qabiir la soo shaqeeyay hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka ee marka magaceeda la soo gaabiyo la yiraahdo FEMA. wuxuu leeyahay dhibaatadii ay reebtay duufaantii Sandy ayaa laga yaabaa inay ka xun tahay tii ay ka tagtay duufaantii Katrina ee ka horreysay, maxaa yeelay buu yidhi dad ka ballaaran ayaa ku nool dhulka ay ku dhufatay Sandy. We're looking at 60 million people potentially affected. waxaan ka hadlaynaa buu yidhi in dad 60 milyuun gaaraya laga yaabo inay duufaantu ay waxyeelaysay. marka haddii la fiiriyo saamaynta dhuleed iyo baaxadda dadka ku nool, Sandy waxay samaynaysaa saamayn weyn oo qaran, waana arrin wax ka qabashadeeda looga fadhiyo cid walba oo ay qusayso. qaladaadkii mas-uuliyiinta Mareykanka oo wajigabaxa ka soo gaaray ayaa ahaa sidii ay uga jawaabeen duufaantii Katrina ee 2005, kolkaas oo shirkado gaara iyo hay-ado madax bannaan ay dowladda kaga horreeyeen u gargaarista dadkii wax ku noqday. waana taa sababta kicisay qayladhaanta, digniinta iyo hadallada isdabajooga ah ee madaxda Mareykanka ka imanaysay intii ay socotay iyo ka hor inta aysan beriga u soo daadegin duufaantii Sandy. warbixintaasna waxaa duufaanta Sandy nooga diyaariyey Maxamed Colaad Xasan oo jooga